dowladda Shiinaha ayaa dhawaan soo bandhigtay mashiino ama robot awood u leh in wararka ay ka akhriyaan TV-yada kuwaas oo u shaqayn kara sida wariyaasha caadiga oo kale. Waraaqyaashan ka samaysan mashiinada ayaa si tijaabo ah war ugu akhriyay TV-ga ku hadla afka dowladda toddobaadyo ka hor. Shirkadda soo saartay qalabkan u shaqaynaya sida wariyaha oo kale ayaa sheegtay in muddo ay socotay hawshu balse hadda ay marayso gabagabo maadaama tijaabadii ugu horeysay ay guuleysatay. bal ila daawada muuqaal kooban mashiino loo ekeysiyay bani aadam oo war ka akhrinaya TV-ga afka dowladda Shiinaha ku hadla. Hello, everyone, I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technology. Siyaanada u dhashay dalka Shiinaha ayaa saadaalinaya in marka la gaaro sanada 2030 dunida inteeda badan ay ku tiirsanaan doonto farsamada ama tiknoolajiyadda taasina ay shaqo la'aan ku ridi doonto shaqaale fara badan.